وتقانين كيس محكمة كتيرة لقى ما هضلو سببته هو محكمة قرنا لا وقف كما ودا قسلس كما هضليو لكن waxaan ka hadlayaa shalay warqad ka soo baxday dawladda aan jaarka nahay ee dariska nahay Kenya warqadu runtii waxay ahayd warqad aan ka turjumaynin ilbaxnimada dawladda kiiska la isku hayo iyo waxa warqada ku qornaa Ismaaciil ahayn waxaan xasuustay markaan warqada akhrinayay iyo sida ay uga qaadatay maxkamadda uga baaqatay dawladda Kenya nin odaya oo weynaaday oo cimriyay ayaa wuxuu arkay nin dhalinyaro ah oo tacab ku jiro beer falayo marka gabadh qurux badan oo u doonan tahay marka wuxuu rabay inuu gabadha ka qaado gabadhii wali ma guursan oo gabadh buu rabay inuu ka qaado marka si uu isu muujiyo inuu nin dhaqaalada haysta yahay nin indabeel baa la oran jiray indho la waa ahaa indhihiisuna fiiqan yihiin gamuun buu geed ku soo taagay ama falaad markuu geedkii ku soo taagay ayuu wuxuu ku yiri gabadhiisu isaga dhaadhiciyo inuu nin khatar yahay geedkaas waxa guntiisa ku taagan ma gamuun ku jabay baa ma falaad ku ganan baa ma atoor gadooda geesii mid kaga tagay bal geedka waxa ku yaala sheeg dadkii waa isugu yimaadeen geedka halkaa ku yaala yaa garanaya waxa ku yaala isaga ku soo muday moogta dabadeedna ina keenay buu wuxuu tusayaa inuu nin khatar yahay oo inda fiiqan wax kasta arkaya intii ay sii socdeen baa soo intuu ka soo maqnaa hal geel ah baa geedkii iyo dadka dhexdoodii fadhiisatay gabgabtii iswaalkii wuxuu guudka kaga dhacay hal fadhida galgalisho ka sokaysa geedka sokadiisii hal weyn oo fadhida iyo dusha kaga dhacay ninkii lahaa gamuun geed ku yaalaan arka horta qoladii Kenya intaan maxkamadiiba la gaarin waxay ku dhexdhaceen jidka dhexdiisa way tagi waayeen maxkamadii hadallo deelqaaf way ku tuureen annagu maxkamadda waa taageersanahay go'aankeedana waa taageersanahay wixii ka sababtay markaad kiiskaaga maxkamad geysato waa inaad aqbasho wixii ka soo baxa laakiin walaaladeen waxay diideen cadaaladii waxay diideen maxkamaddii caalamiga ahayd waxay ku doodeen in maxkamaddu aanay tixgelin 2009 heshiiskii dhacay warqadoodii shalay waa wada akhrideen qodobka saddexaad waxay yiraahdeen maxkamaddu ma tixgelin MOU-gii 2009 dhacay oo ay ahayd inaanu banaanka ku heshiino ay Soomaaliya aqbashay Soomaaliya ma aqbalin 2009 golaha shacabku unanimously aqlabiyad bay ku diideen MOU-ga aqlabiyad bay ku diideen heshiiska sidaa darteed waxaan u sheegaynaa dawladda Kenya Soomaaliya inaanay marna aqbalin heshiiska ay ku doodayaan ay leeyihiin maxkamaddu ma tixgelin marka noo eego qodobkooda saddexaad waxay nagu tilmaameen expansionist dad raba inay Kenya qabsadaan ma nihin dad raba inay weeraraan ma nihin waxaanu nahay dawlad nabadeed dal jecel darisnimada laakiin haddaanan intaa jeclayn maxkamadda maanaan tagnay peacefully and according with justice in cadaalad iyo qaynuun lagu kala baxo oo aniga idinku lahaa ilbaxnimadu waxay ku jirtaa sharciga oo lagu kala baxo waxay yiraahdeen anagu diyaar ma nihin warqadooda saasaa ku qornay annagoon diyaar ahayn baa nala gaaday qodobka 14aad 2016 2015 2021 hadda marayno 6 sanadood waxa lagu diyaarin waayay ma aqaan waxa lagu diyaarinaya hadda 6 years haddaad ku diyaar garoobi weydii waxaasoo dhan waxaanu arkaynaa dad aan cadaalad rabin laakiin annagu cadaalad baan rabnaa darisnimo wanaag baan rabnaa nabad baan rabnaa waxaan rabnaa in lagu kala baxo sharciga waxaananu ka warsugaynaa maxkamadda cadaaladda adduunka iyo go'aankeeda waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan rabaa halkan inaan uga diro salaan hambalyo iyo mahadnaq tiimkii difaacayay badeena ee joogay heeg ee uu hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenku Mahdi Guuleed looyaradii iyo xubnihii dawladda ka socday ee ka qayb galay ee aan nasan habeen iyo maalin ee u soo jeeday dacsashada xuquuqda Soomaaliya